bishii Agoosto ee la soo dhaafay waxaa bilowday Premier League kaas oo min 3 game la soo ciyaaray hase ahaatee hadda oo bil fasaxa laga soo laabtay waxaa la bixiyay abaalmarinadii bishii Agoosto ragii ugu fiicnaa Haaland waxaa la siiyay xidigii ugu fiicnaa bishii Agoosto maadaama uu 7 gool dhaliyay oo waliba 2 hat-trick oo isku xiga uu dhaliyay sidoo kale Cole Palmer waxaa la siiyay goolkii ugu quruxda badnaa kaas oo asna mid u cadareeyay Palmer waa uu shidan yahay mustaqbalna waa uu leeyahay sidoo kale David Raya waxaa la siiyay Portieri bishii Agoosto maadaama uu badbaadin badan sameeyay kulamada qaarkoodna uu gooshiisa ilaashaday sidoo kale macalinka Brighton waxaa la siiyay abaalmarinta macalinkii bishii Agoosto maadaama seasonkan cusub oo kooxda qabtay bandhig fiicanna uu ku biloomay postka saddexaadna uu ku soo hooyay 3 game ee ugu horeysay ee Agoosto la soo ciyaaray dood ma ka qabtaa abaalmarinada la bixiyay anigu dood ayaan ka qabaa hal mid taas oo macalinku Brighton wata 3 game waa uu soo badiyay kaalinta saddexaadna waa uu imaaday hase ahaatee Arne Slot ayaa wacdara muujiyay kaasoo 3 kulan ee ugu horeysay kooxda u soo hooyay inay dhammaan wada badiso shabaqadoodana ilaashadaan hadaba follow iyo like naskugu keendar 3 jeer Premier League sii taabo intaas waxay naga caawinaysaa inaan muuqaalo ka badan intaan soo gudbino waad mahadsantihiin dhamaantiin